waa tahay haddaan markii hore soomaalida oo idil si guud ula hadlaayey hadda waxaan u bayrayaa sidaan ballan qaaday nin qura iyo dadka uu la joogo ee aan anigu u haysto inuu marti u yahay soomaalida inta badan iyo shisheeyuhuna ay u haystaan inuu maamulo. ninku waa maxamed siyaad bare, dadka uu la joogaana waa mareexaanka degan gobolka ballaaran ee gada la yidhaahdo. waxaa la isweydiin karaa maxaan maxamed siyaad qayb uga siinayaa cashiraddan soomaalida u wada socota, maxaanse ula hadlayaa haddiiba uusan wax ku qaadanayn oo waana abuur baa ka horraysaye la malayn karo inuu ku gacan sayri doono. dhowr sababood ayaa igu wacan. waa marka koowaada maxamed siyaad muddo dheer oo 21 sano ah ayuu dalkeenna siduu doono uga soo taliyey. burburka iyo aayo xumada haysatana gacanta ugu weyn buu ku leeyahay isaga iyo kooxdii daacadda u ahayd ee halka aynu naal ina dhigtay. waa marka labaadee waxay dani iga haysaa shacbiga reer gadoodka ah ee 7 bilood ee aan gudaha dalka qaxootiga ku ahaa sida wacan ii martigeliyey, shacbigaasoo weli badankiisu ka diimoon yahay tabaalaha uu aabasiyaad la maagan yahay iyo sida uu rabo inuu gees ugu fiiqo haddiiba ay dhacdo inay soomaali xagga nabadda u xagliso danaheedana u soo jeesato. waxaan qabaa shacbiga reer gadood inaysan awood u lahayn tabcooyinkii uu maxamed siyaad soomaali oo dhan ku hayay inay keligood dusha u ritaan. waxay kolka ila noqotay inay hiilkayga afba ha ahaadee ay u baahan yihiin. midda saddexaad waa nin gudab qabee waxaan u baqayaa isaga qudhiisa iyo ammaankiisa. waxaan ka cabsi qabaa niman dhiiggiisa u haleelayaa inay maalin maalmaha ka mida isaga oo dagan gacanta ku dhigaan, dabadeedna ay horgeeyaan maxkamad degdeg ah oo qabiil ka taliyo oo sida kuwiisii oo kale ragga garsoorayaasha ka ah iyo sharcigu ay kala xanaaqaan. waxaan u diidayaa isaga oo keligiisa oo raggii dembiga la galay ay xor yihiin in la mindi raaciyo. qabyaaladna igama ahee waa iga cadaalad jacayl, maxaa yeelay waxaan qabaa dembigii soomaaliya laga galay inuu ka badan yahay wax uu nin keliyihii geli karo, keligii taliye kastaba ha ahaadee. midda kale waxaan ka afeefanayaa erayadaan u soo jeedin doono inaan digasho loo qaadan, maxaa yeelay inkastoo aan ku doodi karin cadaalad darradiisii inaan ka nabad galay, haddana xubnaha shacbigii uu cadaadiska baday waan ugu roonaa oo ugu yaraan cabsidu ha joogta ha ahaatee ammaankayga shaksiga ahi halis badan ma gelin. sababta meeshii aad doonto ka soo saar, haddaad rabto qabyaalad u malee kollay si kale yeeli mayside. maxamed siyaad waxaan leeyahay si wanaagsan ii dhegayso, inaad i hagaagtana ha isku dayin. hadda waa kacaandiid odhan maysid oo waa bog soo xirmaya, maxaad igu odhan doontaa, maxaadse u sheegi doontaa dadka reer gado ee aan aniga iyo iyaguba ognahay inaad martida u tahay, adigana ay kula tahay inaad u taliso soomaali badan iyo shisheeyuhuna ay u haystaan inaad maamusho. cashiradani markii ay ku soo gaadho waan malayn karaa waxaad ku odhan doontaa CIA-da ayuu u shaqeeyaa, ama waxaad ku odhan doontaa cali mahdi ama caydiid bay fariintu ka socotaa, ama waxaad ku odhan doontaa waa ammaan raadis oo wuxuu doonayaa inuu xamar tago. waxaan ku rajo weynahay intaba inaan lagaa koobin doonin oo awal in yar baa ku taqiine reergada badankiis iyo adigu aad hadda isbarateen. bishii Febraayo 3 waa 1991 saacaddu markay ahayd 4 galabnimo waataan kuugu imid baaq dheere adigoo ay koox yari kugu ilaalinayso guryaha mashruuca fidinta beeraha ee magaalada ka yar baxsan. markaan isa salaanay waataan noqonay labadeenna oo keliya. kolkaad waardiyihii ugu baaqday inay dibadda u baxaan, sababta aad u saartayna allaa igu ogo weli waa iga diimoon tahay. faskii dagaalkii xamar isagoo weli kaa muuqda waataan caafimaadkaaga wax kaa weydiiyey. su-aashaydii igamaad jawaabine waxaad ila aaday xamar iyo dagaalkii. waxaad tidhi anigoo sharaf leh ka tagdi waa tii la iga waayey, anigoo la eryaayo ayaa la iga soo saaray.
waxaan ku idhi kow hadda maxaad damacsan tahay waxaad i tidhi adiga maxay kula tahay waxaan ku idhi ninka ragga ahi waa kii calool adayg leh geesinimaduna waa inaad markii laga adkaado qirato in laga adkaaday waad aamustay anna waan aamusay oo waxaan ka fakarayay awooddii ku soo martay wixii sacab lagu tumay wixii lagu aabbaystay sidii ay tala kaaga hoostay ee tusaalaha waayeelka iyo waxgaradkaba intaad dhab u quursatay ay cadaaladda ilaahayga ahi shaqadeedii u qabsatay sidayna u aamusnayn cabbaar kadib waadigii adigu hadalkii xirmay furay waadigii la soo booday anigoo aan jeclayn oo ka xun ayaan qaxooti noqonayaa waataan ku idhi wax kuu dhaama garan maayee sidaa iska yeer waataan raaciyey intaad soo shaqayn kartay waad soo shaqaysaye tegiddaada qaxootiha u qaado inay benshan tahay waan xusuustaa oo sidaas baan ereyga ugu isticmaalay af ingiriiskiisa waatuu hadalkii haddana inaga xirmay waataan waayey wax kale oo aan ku idhaahdo waataad adigu haddana furtay oo babiskii yaraa intaad lowyaha saaratay igu tiri mareexaan aniga oo dagaalamaya ayuu iga soo tegey waxay la soo baxsadeen lacagtii iyo gaadiidkii ay gacaanka ku heleen waataad raacisay gunnimo doortee waa waxay ka helaan waa hadal dumar baa la yidhaahdaaye waxbaa qub i yidhi eraygu mahadidaad baan is idhi sidee buu mareexaan ugu ceelqali karaa sow ma aha kuwa ay soomaali oo idili daraaddiis ula collowday yaa sheegi kara guri ama qoys mareexaana oo kiisaba allaha ka dhigee aan taliskiisii eedin hadda cidda uu ku soo cararay ee uu maganta u yahay iyo wiilasha loo soo mari waayey ee uu ku hurdaa sow iyaga maaha muxuu ka rabay oo kale ma inay soomaali oo idin u jirib dhigaan oo uu wiilka ugu dambeeyo masruufto ilaa uu inta iskiis u xanuunsado ay tii alla u timaado su-aalahaas oo dhammi waa kuwii isla markiiba igu soo dhacay xusuustayda oo keliyana kaaga soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii aan kulankeenna ku qoray habeenkii markii aan ku noqday baaq dheere iyo halkii aan ka deganaa sow anigu ma ogeyne waxaa dunida lagu weydiinayo codti qaxooti iyo meel ku qaadata 5 casar kadibba waatay jawaabi timid talyaaniga abudabey iyo masaariduba waatay diideen magagelyo siyaasadeed inay ku siiyaan waataad garbahaadaya oo aan deganaa timid 2 casho haddaad joogtay oo lagu sooray laguna loogay waataad odayaashii magaalada shirisay ka soo tashada inaan idinla joogo oo aad dagaalamaysaan reer hebelna aad xaqiinni ka soo dhacsanaysaan iyo inaan iska tago oo meel waliba way ii furan tahay aan idinka dhaqaaqo shirkii waayeelka iyo madaxdii gobolka waa kii uu goor fiid ah la isugu yimid waa tii ay had soo jeediyeen in lagaa codsado gobolka gado iyo dadkiisa inaad faraha isaga qaado oo aad kenya gasho waa tii ay rag kale kaa diideen oo ku doodeen inaad la meel joogto inta kale ee xamar ka soo qaxday gobolkana soo gashay markii ay doodii dheeraatay oo dhinacna la isu raaci waayey waa tii min soo jeediyey inaan arrinta la cuslayn ama lagu kala jabine adiga dib lagugu soo celiyo laguna sheego go-aanka oo noqday tagna ku odhan mayno joogna ku odhan mayno labada kii aadan mooda adigu ku dhaqaaq waa tii lagu heshiiyey in subaxnimada go-aankaa lagu sheego sidaasna waa tii lagu kala oyday waa tuu intaan waagu bariyin go-aankaasi ku soo gaaray laguguna daray raggii bixidaada doonayay inay ka badnaayeen kana cadcadaayeen inta kale waataad farsamada badnayde isla habeenkiiba waadigii qalqaaliyey banaanbax taageero ah oo u eg kuwii xamar aad ka qalqaalin jirtay markii madax la xidho ama aad mucaaridnimo ka dareento xubno ka tirsan wixii golayaasha aad ku magacaabi jirtay waataad intaad gaariga u fuushay oo akhrisay khudbaddii gaabnaanta badnayd asii si walba ugu ekayd kuwii aad xamar ka akrin jirtay bartamihii iyo dhammaadkii 80aadkii waataan goobta joogay waxaan ka xusuustaa 2 hadal oo soo noqnoqday dhowr jeerna 5 daqiiqo ee khudbadda socotay aad ku soo celisay midi wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo ma rabo inaan ku noqdo oo hadduu nafac iyo hiba lahaa soo maray hadalka labaadna wuxuu ahaa kursigii madaxtooyo aniga ayaa xaq u leh oo sharci ahaan madaxweyne ah waana inaad dib ila doontaan intaas waxaa weheliyey tirinta guulihii oktoobar
maalintaasi maalintii aan bahdeeda kugu arkay waxaa u dhaxeeyey allaa igu ogo 4 casho oo keliya maalintaas iyo 6 bilood oo ka dambaysay oo aan geda wada joognay hadalkaagu labadaa unbuu ahaa inkastoo markii aad dadweynaha la hadlayso aad ku lahayd kursigii la iga qaaday idinkaa lahaaye ila doora oo xaqiinii la dhacay soo ceshada marka nin siyaasi ah ama waxbarasho leh aad kulantaanna waataad ku lahayd kursi waxba ku fali maayee waxaan u halgamayaa waa sharafta mareexaan oo meel looga dhacay inaan soo celiyo hadalladaas iska horimaadka badan markii aad goobo dhowr ah kaga dhawaaqday waa tay kordheen dadkii soogitaankaaga geda ka soo horjeeday waa tii la bulaamay adiguna waa taad isku dayray inaad ku cayaarto ama aad danaqdo xididka qabyaaladda ee gobolka oo aad danqay og tahay waa taad faafisay ragga iga soo horjeeda ee doonaya inaan geda ka tago waxaa lacag looga soo diraa xamar lacag aan shilin ahayn dollar amerikaan ah waa taad tidhi waxay raggaasi doonayaan hawiyaha U.S. da sheegta inay i gacan geliyaan dadka wixii makasta ahaa waa adigii kaxaysan ogaaye waa adigii doodaas ka dhaadhiciyey waa taad ka fakirtay qorshe iyo dood kale oo aad joogitaankaaga geda ku sharciyayso cabdiraxmaan jaamac iyo warsame camoole waa taad afka ugu tirtay nairobi iyo gedaba inay ku faafiyaan inta aad gudaha dalka joogto inaan dunidu aqoonsan doonin dowlad xamar laga dhiso waa adigii ku yidhi maxaa taa ugu wacan haddii la idin weydiiyana waxaad ku jawaabtaan waxaa ugu wacan joogitaanka madaxweynihii sharciga ahaa aabbihii ummaddu inta uu dalka ku jirana adduunyadu dowlad kale oo soomaaliya ka dhisanta ma oggola dad makas ah oo rag iyo dumarba leh aqoon darana hayso waa tii adiga iyo xoonka aad laxda u tahay ay taa ka dhaadhiciyeen wax yar kadibba waxaa dadkii loo sheegay inaan taasi run ahayn duniduna ay dal iyo shacbi taqaane aysan dan ka lahayn keligii taliye dadkiisa ka hor dowladaha adduunka bari iyo galbeedba ay joojiyeen inay wax ku darsadaan jabhadaha oo dhanna ku taageereen rididdiisa iyo kursi ka qaadkiisa waxaa dadkii loo sheegay oo raggii joogitaanka ay ka soo horjeeday ay ugu caqli celiyeen aqoonsi la-aanta U.S. da inaan iyagu sabab u ahayn inay iyagu sabab u yihiin aysan ku xirnayn joogiddaada iyo maqnaanshahaaga toona waxay dunidu aqoonsataa dal xasiloon oo midaysan oo leh talis dhexe oo ay xukuumadaha hoose ee gobolladu ka amar qaataan ammaankiisuna sugan yahay U.S. dii xamar qabsatay markii ay intaa ku guulaysan waayeen markii ay xakamayn waayeen dhallinyaradii hubaysnayd ee ay kursiga kaagala wareegeen markii ay weeraro waali ah ku qaadeen gobolladii ay tageen dadkii ay guryahooda ka soo celiyeen ee ay hantidoodii la wareegeen markii ay dileen nin iyo haweenay kasta oo aan hawiye ahayn markii ay kursadeen cid kasta ha u dhalatee gabarh kasta iyo habar kasta markii ay gubeen burburiyeen ama ay boobeen hantidii biirtay ee qaranka soomaaliyeed dagaalkii la islahaa waxay ku ridayaan adiga iyo xukunkaagii faasidka ahaa markii ay u rogeen dagaal hawiye oo daarood gumaad ujeeddadiisu tahay markii ay xagta mariyeen wax alla wixii raad taariikheed dhismayaal taallooyin dagaamo hore iyo wax alla wixii dokumenti qarameed oo laga soo bilaabo 1890 ilaa maanta ummadda u keydsanaa intaas iyo in kale oo aanan tirintooda wakti u hayn markii ay ku eedoobeen nimankii xamar qabsaday ee U.S. da la baxay maxay dunidu aqoonsataa waa tahay dadka reer gedo in badan oo ka mid ah oo aad horay arrinta aqoonsiga ugu wareerisay ayaa doodaa ku qancay adiguna inay tahay dood meel mar ah waad ogey laakiin waxaan ku qancin jaalla cabdiraxmaan iyo jaalla warsame camoole oo ay u muuqdaan imbaraadooryadihii wasaaradaha maaliyadda arrimaha dibadda iyo wixii aan iskaashatooyinka ahayn ee aad iskaashatooyinka ku magacaabisatay inaan aqoonsiga dowlad dhisantaa adiga kugu xirnayn waxay
reer gado u sii caddaatay markii adigoo weli gada jooga jabuuti lagu qabtay 2 shir oo aan lagaala tashan laguna falanqeeyey arrimaha soomaalida. waxay isweydiiyeen haddii aad weli tahay madaxweynaha sharciga ah ee jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya sidee ku dhacday arrimaha dalkaaga shirar lagaga hadlaayo in la qabto adiga oo aan raalli ka ahayn oo weliba go'aamadii ka soo baxay lagugu guddiyo in lagu soo qabto. waxaa shirkii labaad ee jabuuti ka soo qayb galay dhammaan ururada caalamiga ah. wakiiladii yurub ameerika iyo carabtana waxay tira ka qabeen waxaa la waayay meel la kala seexiyo magaalada yar ee jabuuti. xusuustayda oo keliya waxa aan sheegayo ka soo guurin maayee waxaan kaashanayaa waraaqihii gado waxa aan ku magacaabayo oo hadda i horyaal. adigoo dhowr qof mooyee dadweynihii kala kaa jeestay oo wixii aad dabamariyo iyo khiyaamo badnayd aad garan laadahay meel aad wax ka farsamayso waa tii ay soo baxeen go'aamadii siloonaa ee shirarkii jabuuti. waa tii la go'aamiyey in maxamed siyaadi taageerayaashiisa lagu qaado dagaal wada jir ah oo ay u dhan yihiin 6 jabhadood. saaxiibkaagii aad beri isjeclaydeen oo malaha kugu ballan furay cabdirasaaq xaaji xuseen waa tuu go'aankaas jeerka kala soo baxay waana tii laga aqbalay. sidaad adigu islahayd waa tuu mareexaan kuu soo galay dabinkii aad la doonaysay adigoo isku hambalyeynaya jabuuti kadib iyaga iyo adigu inaad soomaali dambiilayaal u wada tihiin inta kalena ay xalay dheeray tahay iyadoo weliba cabdirasaaq xaaji xuseen iyo cumar macalin ay ugu horreeyaan. mareexaan wixii joogitaanka ay dare ka soo horjeeday iyo wixii aan ka soo horjeediniba waa tii ay isaga mid noqdeen inay go'aankaas ishortaagaan si ay noloshooda iyo tan carruurtooda ay u badbaadiyaan. ha yeeshee waa taad ogeydoo marna la iskuma raacin isdifaacid mooyee in mareexaan qaado weerar duruucdiisu tahay inaad adigu xamar ku noqoto oo aad sanooyin kala foorto sheekh soomaalida uga taliso dhallinyaro badan oo da'yarina ay sababtaas u leecato. weeraradii USC-da markii laga baqay inay gada soo gaaraan shirkii koowaad ee jabuutina ay go'aamadiisii soo baxeen reer gada oo idilna ay dareemeen mahtalakada ay cabdirasaaq iyo cumar macalin iyo saaxiibadood la maagan yihiin waa tii bulshada gobolku ay go'aansadeen inay sida qabaa'ilka kale u samaystaan jabhad ay dadkooda iyo maatidooda kaga daafacaan hadidaadda qaawan ee gadarrada la isugu bahaystay ama la isugu raacay. dhallinyaradii waxbaratay siyaasiyiintii saraakiishii ugaaskii iyo odayaashii jiribadu waatay isku raaceen lagaba maarmaan inay arrintaasu tahay iyadoo looga gol lahaa marka hore in la helo hanaan maamul iyo kala dambayn loogu irkado marka labaadna hanaan gobolka looga daafaco nimanka xamar qabsaday ee weerarada gobollada kale usoo abaabulaya iyo waatan saddexaade inay jabhaddaasi noqoto midda matalaysa mareexaanka gado iyo mareexaanka galguduud ku dhaqan kolka la isku raacayo in soomaaliya dib loo dhiso wadahadal la isugu yimaado qarannimadii burburtayna si siman soo nooreynteedii loogu howlgalo. buulaxaawo garbaharey iyo buurdhuubaba waa tii arrintaas la isaga raacay oo aan loo kala bayrin lana waayay cid ku dhiirata inay ishortaagto. ileen adigu dadka la mid ma ahide ileen waad ka sarraysaaye ileen aadan galayr mataan ciideed iyo xirsi ammaan oo la isku daray baa tahay ilaan sacabkii horaad hibanaysaayo ku dilee ilaan 21 sano oo ay soomaali ku wada sujuuday baad soo martay ilaan cid kale oo madax noqotaa geeridaada ah waa adigii asaaska jabhadda keligaa maya yidhi. waa tii la yaaboo lagu weydiiyey war maxaad ku diidan tahay adigoo ay madaxaaga ka dhawaaqayaan soodaf SNM iyo USC waa taa tidhi jabhade waa burcad waa kacaandiid waa in lagu dagaalamaa magacii dawladdii aan madaxda ka ahaa. waa tii loo qaacay ayna ahaydba kursigii halla igu soo celiyey dad badan oo aan makas moodayey hortiina ku arkayey oday iyaga ka dhashay oo magan u ah waa tii ay maalintaas kaa jeesteen kuna soo biireen intii horey ku tiqin. waa tii af buuxa lagugu sheegay isdifaacid mooyee dawlad aan soo ceshanayno oo aan soomaalida kale uga sokaynaa ma jirto. in laga abaaldhacay intaad u qaadatay waa taad afkaaga furatay hebel iyo hebel meeran oo gobolka gedo madaxdooda ka mid ah amaba laga jecel yahay waa taad qarsoodi iyo bareerba u erays.
waataad bilowday shiribada mareexaan inaad tiraahdo reer hebel anigay ila jiraan oo xagga abtirkaanu isxignaa reer hebelna waxay xiriir la leeyihiin USC SDM soodaf iyo weliba SNM oo inay ismaqlaan mooye ay gadaba kala fog yihiin abaalka aad mareexaan u gashay ee aad ka dhowrayso inuu gudaa yaabaye muxuu yahay galguduud iyada haba soo qaadine rubco qarnigii ay soomaalidu xerada kugu jirtay maxaa wanaag ama nolol ah oo xaggaaga ka soo gaaray waddo laami ah 1 kilomitirna allaha ka dhigee ma ku aragtay markaad u soo qaxday waata webigu dhex maro meel walbana washaaqooyinku ay buuxaane beer ma ku aragtay weligaasa ma ku dheeris imise jeer baad timid intaad madaxweynaha ahayd abaalka aad u gashay ma askartii aad ka qoran jirtay oo aad soomaalida ugu goodidi jirtayba mageedida macno darrada ah ee ay 22 sano dadka kale ka xigeenba gobollada soomaaliya mid aana tegin waa yaryahay gobolka ugu liitaana waa gado markii laga eego dhinac walba oo horumar ah oo uu bani aadan ku tiigsado waxaaba ila kaa dhaamay jaale cabdiraxmaan jaamac bare oo bishii maarso kala hore gada aan ku arkay isagoo markaa yurub iyo ameerika ka yimid garab aad u kulul baanu iska raacnay buuraxaawo iyadoo isagu uu adiga iyo buur dhuubo kuugu socdo aniguna reerkaygii iyo garbaarey aanu carowsanahay wadiiqooyinka baxaadka badan iyo haadaanaha baabuurta lagu kakabiyo ee carra casa iyo garbaarey u dhexeeya waddooyinkana loogu yeedho markaan marayno cabdiraxmaanna uu u adkaysan la'yahay jagjagta baas ee uusan u baran ayaa waxaa ka dareemay ina dhallinyaro ah oo aan baraastii bilolaqada ahayde inan yar oo nala saaraa inankii baa yidhi waagii haddaad wax ka qaban lahayd cabdiraxmaan oo maanta tani kuguma dhacdeen cabdiraxmaan wuxuu la soo booday allow yaa mar xukunkii ku noqda waleelaamiyo badani geda waa isku dhaaf cabdiraxmaan baa ila kaa dhaama taa isagaa ballan qaadaya hadduu mar ku noqdo boqortooyadii maaliyadda iyo arrimaha dibadda inuu gedo u faragodi doone adiguse waxaad qabtaa inaan waxba ka dhimanayn oo ay soomaaliya ugu fiican tahay isla beryahaasna waataada reergedaha bilowday inaad ku tidhaahdo wadala-aanta ayaa idin roonay maxaa yeelay haddaad laamiye ahaan lahaydeen kol horuu cadowgu idiin soo gudbi lahaa oo dumarka idinka tubsan lahaa waa tahay su-aashu kolka waxay tahay laga sugayaa inaan ka jawaabo maxaad gada u joogtaa adigu waad og tahay anna inaan ogahay waad og tahay aan dadka kalena ogeysiiyo marka hore waxaa kaa go-aan ah inta aad nooshahay inaan soomaaliya nabadi ka dhicin marka labaad waxaa kaa go-aan kala ah inaad mareexaan ka arsato adigoo u haysta inay xamar buur baraqa ah ugu soo xidleeyeen waxaad rabtaa soomaali oo dhammi haddii ay heshiiso inaan mareexaan yeelin oo uu keligiis nabaddiid noqdo dhulka uu dagaana uu ku abaado goob dagaal oo aan rasaastu marna ka qaboobin marka saddexaad waxaad rabtaa ugaasyadoodii jiray iyo madaxdoodii kale ee ay hiddaha u lahaayeen inaad macna tirto oo aad duubka saaran ka xayoobiso marka afaraad waxaad rabtaa siyaasiyiinta iyo madaxda kale ee ay doorteen iyo jabhadda ay dhisteen inaad saqiir suujiso iyadoo ay qayb ka tahay niyadaada arsiga ah waxaad og tahay dunidii oo dhidili inay diiday kaalmo wax kastaba ha ahaatee daawo iyo cunno iyo wax kastaba inay gada u soo dirto iyadoo meel kasta la geeyo kismaayo iyo bari iyo xamarba sababtana waxaa laga dhigay dhul aad ku sugan tahay inaan waxba la geyn karin waxaan waxba ka jirin ase dunida lagu shaaciyey looguna sheekeeyey inaad kaalmooyinka dunida aad ciidan ku samaysan karto haddii ay agtaada timaado oo aad markaa cadqalaadin karayso baalidoonka nabadda dalka loogu jiro waa tahay sababahaas aan soo sheegay joogitaankaaga gado bal aan qaar ka soo qaado waxa daliishooda ay tahay waxaa ka mid a ololaha joogtada ah ee adiga cabdiraxmaan jaamac bare iyo warsamo camoole aad ku haysaan SNF gaar ahaan cumar xaaji oo guddoomiye ku meel gaara ka ah waxaan ku jiray rag cabdiraxmaan nairobi ku weydiiyey wax cumar loogu jaanjaamay wuxuu ku jawaabay 6 sano ayaa la xiro uu ceel qabaayo in ceel qabaana madax ma noqon karo weligiin xujo ka liidata ma aragteen mase maqasheen aan 6 sano xaqdarro kugu xiro dabadeedna ha ceel qabine raalli ka noqo haddii xataa aan cumar xaaji haysan sababo kale oo SNF madax ugu noqdo waxaa ku filan adigoo dadka kale shacabka kuu tumaayo inuu diiday inuu lamid noqdo waxaa ku filan inuu kugu gacan sayray markaad ka damcday inuu ahaado wasiir maqaar saar ah
وكل مجعبان قاشان لقى إسلام مركز نقول جاء حين مدي سوماليا لوجة تريور ولولا عليك عبد الرحمن يو وسمع عمولة وحو قريب كياه كورت جدا منك على أم ريحانة ومرع ياشا تدريسك على شكاك وصعب سنام خصوصيه وأفقوا يعتقد لي باس اعتقد لي عيدات اللي يراد بدنا قدامتي براها أديكو قراتها يدفعك على أمر فهفاهي قياست وابشي قبل الأكل هوري إذا مرة أسن أفتواتي بين بتشوجين go-aankuna waa tuu ahaa inaan la dhaafina buuxa kaba lagu ekaado jenaraal cabdinaasir xaaji xaashi oo taliye ahaa waa adigii dareensaday markuu diiday inuu xamar galo waa adigii dhallinyarada sodomeeyaha intaad madaxooda minjo u rogtay oo beenbeenta dallacisay ka dhaadhiciyey inay ciidamada horjoogta xamar galaan oo markay raadiyaha qabtaan ka saaraan cajiradii jinni ee aad qaar ka mida u dhiibtay cajiradii aad buurdhuuba ku duubtay ee aad ku sheegaysay inaad xukunkii kusoo noqotay soddonkii wiil oo aan saad haysan rasaas haysan oon hoggaan iyo madaxtoona lahayn iyo casharadiiba waatay ku lumeen mukaygii afgooliyey kadib markii buur xakaba ku jiireen cabdinaasir oo warjoogala ku haya makala jeceshahay murugaysa makaa haysaa u malayn maayo daliisha saddexaad ee sababaha joogitaanka agagado iyadana igaho waa isla waktigaas iyo baydhabo afgooyana aan soddonkii wiil weli tegin waa adigii amray baabuurtii iyo teknikadii ciidamada in lagu dhajiyo masawirkaagii wejiga ahaa jaalla cabdiraxmaan iyo jaalla wasan waa kuwii hawshaa dhabarka u ritay iyagoo hoos kaga daabacay erayada ah rugcadaagii soo rogaal celi qayb ka mid a baabuurtaas oo gacanta USC la galay waa tii bandhig ahaan loo geeyey xamar waana tii loo isticmaalay dacaayad dib loogu abaabulayo mooryaantii dagaalka ku daashay ee bilaliqada u jeesatay waa tii ay ku guulaysay masawirkaagiina uu midnimo cusub ka dhex dhaliyey isla baryahaas iyo baydhabo waa kuwii cabdiraxmaan iyo wasana ay silsadeen dadka halkaa degan waana kuwii dallacaadda iyo magacaabidda qaybiyey isu duwayaal maamulayaal laameed madaxda iskaashatooyinka dhagaxa iyo dhuxusha safiiro qunsullo iyo xoogayaal guud ama koowaad waa kuwa raggii muddo 20 sano ka badan aad Mareyxaan hor dhigtay waana xaqligaas xaqligii Soomaaliya lagu xukumayay ee Soomaali weyn iyo Mareyxaan isnacsiiyey waxaa jeclaan lahayd in xukunka Soomaaliya dib ugu noqoto waxaana jira arrimo ciidaas ka badan oo aan qaarkood soo sheegay inta kalena aan iska dhaafayno oo haliilka aad arrintaa u qabta muujinaya intaad gada joogtay hadafka isaga ah waddo kasta waad u martay hayeeshee waxba kaagama suuroobin maxaa yeelay ciidamadii adoo xamar jooga kugu soo baneeyey ma garan karaan waxa aad u faa'iideynayso haddii aad mar kale kursiga ku noqoto waddo kasta waad u martay reergaduhu inuu ku aqoonsado madaxweynenimo aan Soomaalida kale ku aqoonsanayn waxaana ugu daraa dilkii qarsoodiga ahaa ee aad garbaharey ku soo rogtay waxaan u jeedaa sheekhii reer cali xuseen ee magaaladaas oo dansan noo daaray sheekhii aan cilmigiisa yaabnay ee tafsiirka iyo tadwiirka qur-aanka magaalada nafta qasba ku soo geliyey sheekhii inta joogitaankaaga gada ka shakiyey ka hadlay oo ku biiray dadkii jeclaa inaad gobolka dhinac kale u weegaarato sheekhii isagoo salaadii cishaha soo tukaday oo gurigiisa u socda aad burcadda u soo dirtay ee ay luuqa mugdiga ah khasnada aakaaga ah oogadiisii daahirka ah ku ileeyeen isla markiiba magaalada ka buuraysay ee aad buurdhooga u guurtay markaad ogaatay inuu dhintay waa sheekhii cabdiraxmaan janaac bare roome lagu weydiiyey sidii uu u geeriyooday ee uu ku jawaabay isagoo meyd ah ayaa laga helay waddooyinka garbahaarka middood aan soo gabagabeeyey waxaan kugula talinayaa taariikhdu nin ay diiday baa tahay ogolow inay ku diiday ogolow inaan cid ku heelani jirin waa maxamed sheekh cusmaan iyo cabdi warsame isaaq ragga duulaanka kugu soo ah oo madaxaaga doonaya wixii ay tira lahaayeen ma haysaa wasiir keliya oo fikirkaagii xambaarsan amaba gedo kugu soo booqday waxaan kugula talinayaa Mareyxaan gedo iyo dunidaba inaad u caddayso siyaasad dambe oo Soomaaliyeed inaadan faraha la gelin hadalka aan madaxo ka daabnayn ee ah waa waxbaan xil wareejinayaa intaad iska dhaafto ayaan kugula talinayaa haddii kale adoo 80 kor u dhaafay ayaad ku dhammaan doontaa gacan aan kuu naxayn iyadoo aan lagu barwaran halkaa ayaan ku soo gabagabeeyey hadalkii aan maxamed siyaad barre ugu talagalay oo aan kaga jawaabayey dadka uu la joogaa waxa ay ka qabaan iyo isagu qorshaha uu meesha u joogo waad mahadsantihiin dhegeysi wanaagsan waxaan codsanayaa qofkii mid helaa casiradan inuu qof saaxiibkiisa mid u duubo